kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray ayaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa haddaan ugu dagalna barnaamijkeena kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa weli dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd xidiga qadka dhexe ee lagu magacaabo Bellingham ee u ciyaara kooxda Borussia Dortmund ayadoo doonaysa inay intuusan xirmin suuqa kala iibsiga keenta garoonka Anfield ay ku ciyaarta kooxda Liverpool sidoo kale ciyaaryahanno dhowr ah ay suuqa kala iibsiga ka doonaysaa iyadoo ciyaaryahanno dhowr ay dhaawac uga maqan yihiin kooxda Liverpool sida ciyaaryahanada kale ah Oxlade-Chamberlain, Jones iyo xidiga Alexandro xidiga lagu magacaabo Thiago Alcantara iyo xidiga Naby Keita ay haatan doonaysaa xidigaha Hussein Ora iyo xidiga lagu magacaabo De Jong iyo xidiga Yuni Tielemans iyo xidiga kooxda Sheffield United ee Toby Big ayadoo doonaysa inay xidigahaas dhamaantooda keento garoonka Anfield sidoo kale kooxda Chelsea ayaa weli wada hadal kula jirta kooxda Leicester City ayadoo doonaysa xidiga Wesley Fofana ee ka tirsan kooxda Leicester City asagoo doonaya inuu ku biiro xidigaasi kooxda Chelsea ayaa weli waxaa ku dhegan maamulka kooxda Leicester City sidoo kale xidiga Aubameyang ayaa u sheegay inuusan doonaynin kooxda Manchester United uu doonayo kooxda Chelsea inuu ku biiro asagoo si cad ugu sheegay inuusan doonaynin kooxda Chelsea macalinka kooxda Manchester United macalin Ten Hag ayaa doonaya inuu mar kale la midoobo xidigiisii hore ee Antonio ee hore uga wada tirsanaa jireen kooxda Ajax asagoo doonayo inuu keeno garoonka Old Trafford ayadoo haatan si rasmi u qaadatay kooxda Manchester United xidiga Antonio ayadoo dhiman in heshiiskiisa la dhameystiro iyo in la soo bandhigo kooxda Chelsea ayaa u sheegtay xidiga Jalaba inuusan bixi doonin asagoo sii joogi doono kooxda Chelsea macalinka kooxda Man City macalin Pep Guardiola ayaa u sheegay kooxda Barcelona inuusan doonaynin inuu ka baxo xidiga Bernardo Silva kooxda Man City asagoo sii joogi doono asagoo si cad u sheegay kooxda Barcelona kooxaha Barcelona ayaa hal ciyaartay ayadoo ku badisay 4-0 sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa hal ciyaartay ayadoo 2-1 ku badisay fadlan haday tahay markii ugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena xogta ciyaaraha dunida fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan waxyaabaha ciyaaraha ugu dambeeya aan soo